marka waxaa loo baahan yahay in dadka ay helaan yani waxbarasho bilaasha ujeedada laga leeyahay waa mid ah ilaan suuragal ma yani Soomaalida alxamdulillah waa caruur badan yihiin 10 caruur ay leeyihiin ma awoodaan 10 caruur inay u diraan iskuulka oo lacagta laga wada bixiyo arrintaas oo dhab ma marka cunug ama labo u diraya kuwa kalena meelooday dhildhiilaya markaasay fasaad kasta iyo saqaajaanimo kasta ka shaqeynaya ilaan haddii aadan cunuga jihay asiga isjihaynayo shaqadiisa saa qabsanaya Soomaa marka cunugii waxbarashada ka yimid wuxuu gurigu ugu imaanaa ama labada cunug 8 kale 8daas saameyn ku yeelanaya marka isaguna waxay u badan tahay inuu ayaga iska raaco ilaa waa laga baday xaqiiqdu taas waa marka waxaa kaloo dhacda oo duruufaha aan soo aragna anaga yani ardayga inuu waxbarashada ku bilaabayo isagoo 12 jir 12 sano markuu jiro marka uma cuntamayso wax ma soo baran wax ma yaqaani inuu ciyaalka yarka oo la fariisto fasalka koobaad iyo fasalka labaad inuu la fariisto marka iskuulada marka waxa loo sameeynayaa koorsa loo sameeynaa koorsada marka wuxuu leeyahay aniga fasalkan mar rabayna aniga iskool soo aado anoo uniform ko wato 6 sano ama 8 sano ama in ka badan leeyahay maalin musuad marka waxa qasab noqonaysa marka in yani muxuu baran karaa muddo intee la eeguusu ku baran karaa aan laga fikiro qofkan in la qanciyo asaga qancintii marka ay noqoto inuu dugsiga sare sanad ama 2 sano uga baxo marka taas haday dhacdo marka imtixaanka shahaadiga ah oo wasaaraddu ay qaadayso oo galo maxaa u maleynaa adig marka oo macalinkiisii is afyaqaaneen uusan ka qaadin oo macallin uu weligiis arag iyo fasal uu weligiis aragna oo imtixaanka ku galo taas ayaa iyaduna keenaysa dhicidda faraha badan marka dhicidda faraha badan inaan ka baxno oo arrintaas aan xoog saarno ayaa ka mid ah dadaalada aan wadno dhiciddaas marka duruuftaasuna waa jirtaa oo muuqata oo xaqiiq ah wax kale oo eegana jirta dhicid siyaasadeedna waa jirtaa dhicidda siyaasadda annagu aanba dagaal ku qaadno laakiin middan hoose oo xaggiina adinkana naga xigsada midaas daal waxaad ogtihiin wasiirka hore waxbarashada inuu dhahayay shahaadada waxbarashada ma siinayno cid aynaan kontroolin imtixaankeeda soo dhab maaha state dhan ama dowlad goboleed dhana arrintaas yani ka gadooday oo dhibaato badan ay ka taageen hadda waxaan maqlaayay marka wasaaraddu inay u ogolaatay tiri imtixaankaaga gaar u qaado shahaadadan anaga ku siinay taasi marka cadaalad uma aha dadkan marka ama imtixaanka intana la ka wada qaado guud ahaan shahaadada markaas hana la wada siiyey inteeni bast ama qof walba buuggiisa inta furto miiska ha saartee miis ha qorto shahaadaha la siiyey marka annaga marka dagaalkaas annagaa ku maqan adinkuna tayayarada xaggiina naga tiiriyay haddii alla idmo ballanteenu marka waxay tahay bulsho waxbaratay oo bilicda iyadu ilaashata iyo horumarka oo aan loo meerin oo aan lagu qasbay jidka uu qashin ku tuuray iyo meesha aan wasaq kusoo deeyey iyo laamiga uu kusoo durqay maalin ma ku jiri karno waxaas annaga dadka inay iga ceshadaan laga rabo marka waxaan rabaa inaan intaas hadalkayga aan ku gaabiyo